Assalaamu calaykum. Waxaa jira waxyaabo la sameeyo markaad subaxii ka soo kacdid hurdada si ay maalintaasi kuugu noqoto mid aad ka faa'iideysatay waxna aad qabsato. Haddaba waxaan kuugu soo gudbinayaa halkan in aad sameyso 3 waxyaabood si ay maalintaadu u noqoto mid aad ka faa'iideysatay. Tan koobaad, inaad sameyso almiito. Subaxa hore ee maalinta waa xilliga ugu fiican maalinta oo dhan. maxaa yeelay waxaa kugu jira awood badan iyo firfircooni aad ku qaban karto wax walba oo ka horyaal, taas oo laga yaabo in aadan helin si aad u fuliso howlaha ka horyaala maalinta gelinkeeda dambe. Almiitada aad samayso aroortii markaad ka soo kacdo hurdada waxay maskaxdaada u diyaarinaysaa in ay diiradda saarto howlo maalmeedka ka horyaal iyo inaad u gudato si habsami ah. Tan labaad ee aan ku siinayo ayaa ah inaad akhriso buug ama kitaab. Akhrinta buuguna uu kuu noqdo mid ka mid ah caadooyinka aad samayso subaxii markaad soo kacdo. Waxaa habboon inaad akhriso nuqul ama chapter aad jeceshahay inaad ka akhriso buug 30 daqiiqo ilaa 1 saac subax walba. Caadadan sidoo kale waxay kaa saacideynaysaa in aad hesho dhiirigelin iyo in dareenkaaga ku aadan waxqabadka uu siyaado. Tan saddexaad ee la rabo in aad sameyso markaad subaxii ka soo kacdo hurdada ayaa ah inaad muuqaaleysato waxa aad rabto inaad qabato. Waxaa habboon inaad yeelato caado ah in markii aad kacdo subaxii aad maankaaga ku sawirato waxa aad rabtid inaad qabato, sida aad rabto inaad u qabato iyo goorta ku habboon inaad qabato. Saan ood sameyso waxay kaa taageeraysaa in aad hesho dhiirigelin iyo go'aan qaadashada maalintaas.